guddiga qaadhaan ururinta wadada qaybta Ceelafweyn ee gobolka Sanaag ayaa kulan ballaaran oo ay qabteen waxa ay ku shaaciyeen halka ay u marayaan awlahoodii shaqo waxaana ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay afayeenka guddigaasi Axmed Saciid Gudane oo bixiyay isla markaasina daha ka fayday qaab qorsheedka ay u qaban qaabiyeen qaadhaan ururinta wadada ee gobolka Sanaag ee degmada Ceelafweyn hawshaaynu hore u wadnay ee ahayd wadada hadda muddo bilabaynu wadnay marba heer bay gaaraysay hawshii wadada aynu soo wadnay waxaanu jeclaanay inaanu u soo gudbino dadweynaha iyadoo qaybtii aanu qaybinaynay aanu kala tashanay ay halka ka dhisan yihiin dhowr guddiyo guddiga wadada guddiga haweenka golaha deegaanka intaasuba ay ka wada qaybgalayeen dadweynaheena qorshihii ay ku hirgeli lahayd 20 kiiloomitir ee aynu qaadanay reer Ceelafweyn aan ku qaadanay lacagteedu ay ahayd 2 milyan lacagta waxaanu u qaybinay 4 qaybood sidii odayaashii hore ay sheegeen qayb waxaanu siinay xoolo baanu ka dhignay bacdaba degmadeena ay tahay degmooyinka ugu xoolaha badan waxaanu kala badh lacagteedu qaadanay badh waxaanu ka dhignay xoolo qaybna waxaanu siinay qurbajooggeena oo aan isleenahay qurbajooga iyo naga jira magaalooyinka waaweyn Soomaaliya qaybna waxaanu saarnay magaalada Ceelafweyn iyo Tuulooyin magaalada Ceelafweyn iyo Tuulooyin waxaanu saarnay 400 qof walba oo ka mid ah Ceelafweyn midna lacag buu hayaa midna xoog buu hayaa midna niyad buu hayaa kaniyada laftigeedu waa dhaqaaq waxaanu sameeyno kale guriyaha waanu tira koobnay baamishtarka waa tira koobnay gaadiidka waa tira koobnay guriyaha lacagtii nooga soo baxday waxaanu qaybinay 3 qaybood lacagta laga rabo waxay noqonaysaa insha Allah guriyaha total waxay noqonaysaa 4,490 waxaanu kala sameynay gaadiidkeena markaanu tira koobnay baabuurta waaweyn iska rogooyinka iyo booyadaha lacag baanu saarnay baabuurta seerafyada waa saarnay baabuurna kala tegin markaanu lacagtoodii isu geynay waxay noqotay iyaduna 9,750 waxaanu kala sameynay ganacsatadii baanu tira koobnay dukaamadii waxaanu u qaybinay 4 qaybood dukaan baa mushtari muwaaridlaha dukaan kale waxoogaa iska yar ladan mid ka sii hooseysa mid kale iyaduna waxba iska barakaysan iyaduna dakunkii labada ku bixi karta mid walba markaanu tira koobnay saarnay waxaanu saarnay lacag dhan iyaduna way noqotay 25,200 markaa ganacsato oo dhan waa ku jirtaa ilaa kaanu 3,000 iyo 5,000 saarnay iyo kaanu $20 saarnay intaasay isugu jiraan ariga waa 20,000 qabyaaladiina waa ka daynay sidoo odayaashii hore sheegay 4 qaybood baanu waxaanu niri ruqaasha ayaa hormoodka oo iyaguna ka xayn doona insha Allah liiskiina uu dhiibi doona Ceelafweyn walaafateedii 100,000 baan ku jiraa dawladda hoose 150,000 ayuu qabaa tuulooyinkii waxaanu saarnay 100,000 tuulo waa liiskaraysan yihiin waa 3,030 tuulo baa qoran waa iyaduna saasay u qaybsan yihiin min 1,000 min 2,000 min 200 ilaa saasay u dhigan yihiin 100ka iyo 250ka dawladda hoose waxaa mas-uulka maamulka baanu idinkaa ka soo ururinaya idinkunta lacag kastoo aanu meel saarnay waxaanu u samaynay ciddii loo dabageli lahay ardayda iyo shaqaalaha waa ku celinay lacag waxaanu bacdana ay tii qaranka bixiyeen tii degmadana ha bixiyeen 3 bilood min $1 baanu saarnay waxaanu kaloo saarnay lacag waxaa ka mas-uul noqon doona iyagana kolley isaga waxaanu saarnay shirkadda dahabshiil lacagdan $20,000 talisom 20,000 baanu saarnay shirkadda qaadka waxaanu saarnay 50,000 shirkadda kale qaadka waxaanu saarnay 20,000 oo way ka yar tahay soofe hay'adaha DRC waxaanu saarnay 20,000 hay'adda NRC waxaanu saarnay 20,000 aadan jaamac faarax mahdi macallin cabdiraxmaan iyo yuusuf eegajira oo iyana ka mid ah xubnaha guddigaasi ayaa si wada jira hoosta ugu xariiqay inay sida ugu dhaqsaha badan ay u soo xareyn doonaan qaaraanka wadadaasi ee qaybta Ceelafweyn isla markaasina waxay intaasi raaciyeen in aanay cidna uga daba fadhiisan doonin dhammaanba guryihii uu sarfeyga wadadaasi uu fooda ku qaatay iyagoona tilmaamay inay wadada bulshadu leedahay guryahana ay bulshadu leedahay balse ay asmaceen mulkiilayaashii guryahaasi mas'uuliyiinta heer degmo ay ka mid yihiin gudoomiyaha degmada Ceelafweyn Baasha Xandulla Warsame gudoomiye ku-xigeenka degmada Ceelafweyn Salabaan Yuusuf Diiriyo Dawaa iyo sidoo kale xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmadaasi Saciid Maxamed Ogle Saciid Xasan ayaa iyaguna dhammaantoodba iftiimiyay mihnada iyo waxtarka ballaaran ee ila dhaqan dhaqaale ee haddii ay howlgalka wadadaasi u dhamaado ay u soo hoyn doonto bulshada ku dhaqan magaalada Ceelafweyn oo ah dhulka iyo baaxadda ugu badan ee ay
ay wadadaasi mari doonto sidoo kalena waxay sheegeen inay si degdeg ah ay u bixin doonaan qaadhaanka kaga soo aaday ka maamul ahaan ee wadadaasi cabdiraxmaan ismaaciil saciid telefishinka qaranka Soomaaliland